مالي مال ما كميد النبي صلى الله عليه وسلم وحو صومري قبري وصومري ماشي قبور تواتقانا مسلمين تلودو لبا قبري وصومري رسولك وحو يري إنهما ليعذبان لبدان قبر ماشي كجر موجيدا ددك كجر ولا عذاب ويا لبدان قفوض قبري وكجر ولا عذاب ويا إله حكام قال عذاب القبر وما يعذبان في كبير وحوينه لقوم عذاب ويا لبدا ماشي كجرت لبا قفوض او قبري او ماشي كجر رسولك وصومر وحوني ولا عذاب ويا نبي صلى الله عليه وسلم ولو وحيونا ولو شيء لبدا إلا عذاب ويا وما يعذبان في كبير ددك مسكح أهان وحوين لما أهان محل عذبه كان كوبات كان لا يتنزه من البول كان كوبات كهذا اسكموسا دقي جيرين اما اسكم الى جيرين فنفنين كذا اسكم الى جيرين هنسك الى لنا ارنتاس تلبادنا وحا وايه كان نميم وايه كان ياخذ الكلام هذا الوقف قاده وخذل كلا وجينا شري waxaan ka soo sheekeynay xanta waxay tahay xanta iyo namiimada waa kala duwan tahay xanta waa qof ina wax ka sheegtay uusan jecleen namiimadan waxa waa qof ina hadalka qaadido qof kale u geysay أنا مثلا هذا الكل هاي وحان كل إنسان كل هاي ظروفا كو شيكت أم وحان كو شيكت هذا الكي إنا قاد وقف كلا وشيكت أما قفان إزدقال سنين هذا لان هاي هذا الكي عندها قاد وقف كي أو شيكت أما سيديسا أو شيكت أما وابد شوا نميمة واي اسكو در واي نميمة داس رسول صلى الله عليه وسلم لبدا قفود مركا وحا لو عذابه يا وحا وكان كوبات كالد اسكا مدقي جيرين كان لبادنا وحا واي هذا الكودتك وكلا جيري والله أرنو آدو حنصو ماهن والله وضع أرن مركا إلهي كو عذابا يددك كو عذابا إنا اسكي إلهي النوال فيري ولا ليال كاديدا ونجاسة واي قفك اللوبا هي إنو اسكا طاهريو كتاب الطهارة فقه مركا كتابك أوغوه الريو كتاب كستو فقه مذهب كارب تتأرك كتاب فقه كلافور كتابك أوغوه وكتاب الطهارة كتاب الطهارة وحو كشاكينا وحل اسكو طاهري وحو المياه واي maxaa baab nijaasada ku xigta marka nijaasadan wax ugu horeey waxa oo boolka ibn aadan ka soo baxo kaadi ka soo baxdo idan kaadidaas in la iska ilaaliyo ayaa loo baahan zamankan hadda bidaat wiilasha waxa u badnaadaan dhalinyarta waxa laga yaabaa istaagiisa inuu ku soo kaadi oo iska soo baxa laga yaabaa fanfaniinka kaadida soo gaarayso he doesn't care waxba inuu dhagu dhigana laga yaabaa fanfaniinka ku soo gaaraya naftirkeeda waa nijaasa waay qofku waxa loo baahan yahay waxaan ku jirnaa zaman oo fitna ku jirnaa hada mesela qofka xala shaqo inuu ku jiro shaqo markaa ku jirtid kadib waxa isticmaal suuliga isticmaalaysa gaalada suuliga ayagu istaaganay ku kaadiya dhinaca ragga bidaat ayagu soo istaagan meeshii ma fariisan kartid kaadiya saa ka buuxdo ma fariisan kartid waxa sameeysid ma taqaanid meeshii dan ma dhaqi kartid biyo ma walaha ku dhaqdid naabkiina soo qaadid kaadooda ma tirtiri kartid dhibaato joogto marka say sameeynaysa adiga loo baahan yahay marka ina iska ilaalisid dharka kor u qaadatid ama kaadi inaysan korka gaarna iska ilaalista ayaa loo baahan yahay kaadida qofka marka waxyaalaha oo dambiga oo weyn waay oo naarta lagu gaawa way ciyaad billah dadku xalay inuu yareystaa laga yaabaa kaadida waa la dhaqi karaa haddana biyo haysan maxaa sameynaysa naabkiinka isticmaalaysa tissue meeshii la soo qaado bathroom tissue meeshii la soo jaro isticmaal waa isticmaali kartaa wax weyn ma ahan waa isticmaalaysa hal isticmaal oo ugu yaraan saddexa oo ugu yar laakiin la isticmaalo dadka qaarkood wuxuu roo inuu istaahiriyo wuxuu isku taahirinay hal xabo isku hatta hadii xabad ay kugu filnaato ay kaada meesha kaada aad tirtirtay ay qallasho saddexna isticmaashi minimum saddex waay qofku wuxuu isku taahirinay saddex waay saddexdaas tissue ama saddex dhagax ama saddex ul waxa isticmaalaysid meesha joogtida ku xiran tahay saddex mar inaad tirtida loo baahan meesha dabi isticmaashada biha wa ni'ma alhamdulillah idan taas marka waxa waaye qofka inuu istaahiriyo ayaa loo baahan yahay qofka number 1 waxa waaye qofka loo baahan inuu ilaa qofka muslimka waxa waaye inuu iska taahiri bal salaadaada lama aqbalayo hadaad nijaasa tahay dharkaaga hadii kaadi gaarto dharkaadi leh salaad lagu ma aqbalayo qofka lana shuruud salaa waa ka soo sheekeynay barnaamij khamiis oo maanta kala aan soo gelino ku noqo shuruud salaa waxa kamid qofka tahaarati albadan والثوب والمكان qofka korkiisa inay taahir ahaato oo korkaaga kaadi aysan gaarin aysan dhibac xataa inaysan gaarin dharkaaga sidoo kale aysan kaadi gaarin meesha ku tukanaysid laftirkiisa inay taahir ahaato saddexaas meel waxa inay taahir noqoto salaadaadiiba waxay ku xiran tahay inaad kaada iska dhaqday ku xiran tahay loo baahan yahay qofka inuu iska dhaqo loo baahan yahay tayib nijaasada marka waa si general rasuul sallallahu alayhi wasallam aad u aga digay waa xadiidkan wuxuu ku sheegaa كان لا يتنزه من البول وحو كتوسا مركا إنو قفك إسك إلاليو
kaadida specific ayaa loo sheegay xadiid in qofka lagu cadaaba laana qofku waxaa laga inuu yareysto biyo waa u yareystaa laga yaaba baynama saxarada uu iska dhaqaa calaasha urkeeda laga yaaba inuu isaga dhaqaa laakiin kaadida qofku waxaa laga yaaba inuu iska yareysto marka waxaa loo baahan yahay qofka inuu iska ilaaliyo waxyaalaha diintiisa dhaawacayo salaadaada dhaawacayo korkaaga nijaas hadduu salaad lama aqbala shuruud salaa maxaa waaye tahaarat waxaa ka mid intaa kelima tahaarat albadan wathawb walmakaan qofka korkiisa inuu daahir ahaado kow dharkaaga inuu daahir ahaado dadka qaarkood waxaa degdeg ku jiro inuu soo kaadi soo xirtay sarwaalkiisa soo xirtaa laga yaaba maya ma saasa samaynin hadduu gaaro kastoomadaada ama underwearkaaga hadduu gaaro inaad bedeshid ama dhaqdid waaye waa nijaas waaye inaad dhaqdid waaye ma ku tukan kartid qasab waa inaad dhaqdid idan waxaa loo baahan yahay waxyaalaha marka ilaahay uu nacban yahay naarta geeya haddaa saa cinwaanka aragteen waa laba arrin oo ilaahay subxaana watacaala nacban yahay waaye naartana laga yaaba in lagu galo loo baahan yahay qofka inuu iska ilaaliyo bal naarta rasuulkaaba noogu sheegay qofkaas qabriga in lagu cadaabayba ilaah naga badbaadiyo cadaab alqabri allah naga badbaadiyo idan tan koobaad walaalayaal waxaa qofka inuu isdaahiriyo gaar ahaan kaadida iska daahiriyo markaa kaadinaysid meel oo sifa meel oo faniinkaas uu gaarayna fariiso meel faniinkaas uu gaarayna ku kaadi then waxaa sameynaysa korkaagana iska dhaq ama haddaadan biyo haysan napkin ama tissue isticmaal wax dhib ma lahan waa qaybta labaadna waxaa waaye annamiima waaye qaybta koowaad waxaan kasoo sheekeynay inay tahay qofka inuusan iska dhaqin nadaafada taha u isdaahirin waa qaybta labaadna waxaa waa annamiima namiima maxaa waaye marka waxaan rabnaa namiima inaan tacriifino namiima waxaa waaye qofka inaa hadal ka qaadid qof kale u geysid hadalkan lagu sheegaya ammaana waaye aniga maanta haddaan kula hadlo hadalkayga inaa sheegtid makuu banaano kuma qasbani inaan ku dhaha sheegin inaan dhaho kuma qasbani ayib example aan ku siinaa maalin maalmaha ka mid rasuulka sala allahu alayhi wasalam wuxuu weydiiyey xafs cumar bin khataab gabadhiisa radi allahu canha wuxuu yiri kayfa xafsa ka warrama intaas keliguu yidhi wax kala rasuul sal alay wasalam ma dhihin abubakara meesha joogay xafsa markay soo garoobowday oo cumar bin khataab aabbaha wanaagsan fiiri gabadhiis wiilasha keliya inaan u raadina xaasas u raadina ma aha gabdho u raadino gabdhaheena naftirkooda inaan dad wanaagsan u raadino waa loo baahan yahay aabbaha wanaagsan saasaa laga rabaa wiilka annaga soomaali haddaan ama carabta oo kale wiilkunbuu gabar u raadina wiilkiina xaas ama gabar u raadinayo gabadha meesha kuu joogta miskiinta iyadane xaq ma lahan kugu lahan aabbaha wanaagsan marka oo caqliga le waxaa waaye qasama inaad gabadhaada dullaysid oo tiraahdo kalkaal gabadheedan ku siina maya si indiracta oo la hadli kartaa indiracta oo la hadli kartaa cumar bin khataab radi allahu canhu fiiri wuxuu sameeyey wuxuu gabadhiis markay garoob noqotay xafs wuu tegay wuxuu u tegay abubakar u tegay wuxuu yidhi abubakar oo maqal xafsa waa ogtay gabar wanaagsan oo diin iyo akhlaaq leh waaye haddana ciddada way ka bax haddaan ku siiye ka waran abubakar waa aamusay umuusan jawaabin jawaab laaha walaa maya wax ma dhihin cumar hadalkii wuu dhibsaday marka actionka uu ku sameeyey wuu dhibsaday wuu ka soo tegay laakiin qalbiga muuse u sheegin qalbiga ugu qabtay wuxuu u yimid cuthmaan u yimid ibn cafaan radi allahu canhu wuxuu yidhi cuthmaan uu gabadhayda xafsa haddaan kugu dara ka hor cuthmaan wuu cudur daartay wuxuu yidhi gabadha rasuul sal alay slam aan qabaa oona xanuunsan hadda wax ma samayn karin iyo cudur daar ayib cali u yimid cali radi allahu canhu wuxuu yidhi hadda duruufan ku guursado waxaan hadda ku guursado awooddaas hadda ma leeyahay cumar alkhataab gurigiisu kusoo noqday asoo joogo asoo meel kale weli aadin gabadhiisa xafsa waxaa soo doontay rasuulka sala allahu alayhi wasalam ayaa soo doontay lmuminiin waay rasuulkaa soo doontay cumar aada ugu farxay gabadhiisa inuu nebiga soo doontay nebiga saydigiisa uu noqdo aada ugu farxay nebiga uu sodoh u noqdaan dhehe sayidima nebiga uu sodoh u noqday len cumar gabadhaasaa dhalay nebiga guursa nebiga inuu sodoh u noqday aada ugu farxay cumar alkhataab gabadhi xafsidaa loogu daray markii lagu daray kadib cumar abubakar u yimid wuxuu ku yidhi abubakaro gabadhaydan kuu soo bandhigay waa kaa xumaaday oo dhah gabadhaydan kuu soo bandhigay imaadan jawaabin xataa jawaab waa ii quuri weyse oo dhah waa kaa xumaaday arrintaas bointinga raba marka meesha abubakar radi allahu canhu wuxuu yidhi haddaa iga xumaati ka raali noqon laakiin waxaan maqlay nebiga sala allahu alayhi wasalam ku sali nebiga marka magaciisa maqashide nebiga sala allahu alayhi wasalam oo dhahaayo xafsa ka warrama maadaam uu yidhi xafsa ka warrama waxaa maskaxdeyda soo galay rasuulka sala allahu alayhi wasalam inuu damacsan yahay mana laga yaabin rasuulka sala allahu alayhi wasalam sirtiisa inaan sheego cajiib rasuul sal allahu alayhi wasalam waa guursanaa muusan dhihin sir waa halii qari muusan dhihin fiiri sir waa halii qari muusan dhihin
مع ذلك صحابة وحو فهمين أبو بكر رضي الله عنه وحو فهمين أرنتان النبي صلى الله عليه وسلم إنه ربو إنه قالوا سداسوا الرسول صلى الله عليه وسلم آجا شيئا وسن آجا شيئا. طيب أبو بكر رضي الله عنه تاسوي الرسول صلى الله عليه وسلم أرنتان نميمة آدو آجد وحير النمام لا يدخل الجنة. قفك النميم كإيه جنة ما قالوا نميمك وحاو قفك هذا الأول بسنايو إنا كقادد أو جيسد هذا القفك لا أو جيسد واي أبو بكر رضي الله عنه حضر النبي قد بسناي معه لكن سرتي سإنه بحيو أيو ديدي بو انت ماشي نفترك حديث كم حنكفى إيدي سنة نمنك يحاسسك وضع مركي وضع هطلان هذا الكجوري ولو هذا السر واعي إنه بنانك وبح معهن نمنك قارك وضع وحى أركيسة والعياذ بالله آد وحمى رسولك حتى وكدي وحي قريس كدع إنه بري ما ذا دليرته ولا شيء كيسناي وأرن حمواي أخلاق معهن وحي أدي حاسك قولك جيفك صور قولك جيفك كدعي إنا بنانك رجع أكينتي وحنا أحسن ما سيدو كلا جبده وحي قولك جيفك كدعي إني جبده صاحبتي ذي وش يكتب إيدو كلا وحنا أحسن معهن قريها أسرار وليه مرك الرسول صلى الله عليه وسلم حديث كيسة وحنا كقادنينا مرك قفك نميمك إنه سنجنة قليلين إمام النووي رحمه الله تعالى مركو نميمة ذا تعريفنا يوحو يري هي وحاول نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. نميم وحاواية قفك إنا هذا الكيس قادد أو قفك لا أوجيسد أذي قول ربتد لبضان قفود لحظة ذا إنا فساد سميسد ماشي اسمها كبحاية مركا وناقة هذا الوناكسن إنا قادد أو قفك لا أوجيسد أذو خير ربتد وابنان تحي taas maanta la diiday xadiidka nabiga laga soo qaaday anaga noola keenay waa saxaabada soo qaad saxaabada anaga noo keenay muhaadaradan amaanta aan ku dhahooyay waa iga dhageeyst qof kale u geysay dambi ma aha namiima ma aha imaam nawawi radiyallahu rahimahullahu ta'ala wuxuu taariif markuu wuxuu waa hiya namiimada waxay tahay naqlu kalaam الناس dadka hadalkooda in la qaado بعضهم الى بعض qaarkooda qaarka kale la qaado على جهة الافساد ayadoo la damacsan fasad in laga wado in la geeyo إمام حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أسنا وحو يري ولا يختص بذلك بل هي كشف ما يكره كشفه انت كلمة إنا شيكتت وحو قفك النعبية هي إنا شيكتت نفتر كذا واطا هاي والله سيران كو شيكتي وكلام معنى هذا حضران كو شيكت هذا الكي سرت إنا قفك الأو شيكت قال دوايه قو حاوة تنقو إنو عن بدنا قانو حاوة قفك إنو هذا القاضي وقفك لو أجيو أسيقو ربا فساد وربا نميمة واي حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وحير وهو الأكثر ولا ينتقد بذلك بل هي ولا ينقص بذلك بل هي كشف ما يكره كشفه قفك إنه كشفيه وحو نعبيه إنه قفك أرنتك الله كشفيه أي أيوه قفك ربح الله شيء وحو علماء قاركون وحو تعريفين وحاول يتحدث مع القوم فيهم عليهم فيكشف ما يكره كشفه هذا قاعدة dadka loo sheega wuxuu kashfa ama sheega wax uu san rabin qofka kale in laga sheego مثلا example aan ku siina saaxibka wuxuu kugu yiri maanta waxaan rabaa hiblaan rabaa inaan guursado waa timid hiblana tartana loogu jira waa gabar fiican oo diini akhlaaq leh waa tartana loogu jira wiilasha dhana maskaxdooda ku jirto hiblaan rabaa inaan guursado ku yiri waa qaadi hiblaan rabaa inaan guursado dhalinyarta qaarkood u sheegtay taas marka maxaa waa iidan nafta kada namiima waa waxa laga yaabaa qofkan meel oo kaliis uu gabanay ina hadalkiisa banaanka soo bixis asoo diyaar in hadalkiisa ina ka shiftaa laga yaabaa waxa laga yaabaa dad kale oo meesha oo kaanu tarabasuun dhahay ma goorma meesha gashay inay jaani saraa ay garan ay aga hormarana baa laga yaabaa idan ina sheegtid qofka wixiisa ina ka sheegtid ma aha waa qalad waay qofka markuu waxa loo baahan yahay hadalka lagu sheegay namiimada ama sirta lagu sheegay ina ilaalisid waay hal wax aad isaga ilaali namiimada ina qof hadalka sheegtay namiimada waa qeyb waay marka qaybta koobaad waxa ugu xun oo ugu weyn waxa waaye hadal ina qaadid qofka qaadid ama koox ka qaadid qof au geysid ama koox au geysid adigoo rabtid fasaad rabtid okay waxa tiri مثلا maanta laba qof wada hadlayso qof wax laga sheegay shira lagu jiro for example shirka markii lagu jiro waxa la yiri hebel saan uu sameey wixii laga hadlay waa soo qaadi hadalkii soo qaadi you know what hebel adii hadayd ka hadlayeen maxaa sameysay fitna sameysay meeshaas waa marka meesha xaraamka ah وين واي ولعاد رسول صلى الله عليه وسلم وكنت المام قفكاس إنه سنجنة قليلين والعياذ بالله إلها كما قال إذا وحا لو باهي قفك أرنتا سوكر إنه إسك إلاليا لو باهي النمام لا يدخل الجنة قفك نميمك جنة ما قالوا
إلهي نجبت باديو أو نميمة لأن دبعتها لا هو الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء دبعتها لا قبر اللي عذابين حديثا وصامرنا إنهما لا يعذبان لبدا قفوت قبري قالوا عذابه يا قبري محين قلت عذاب وحلو عذابا وحوا كان ينقل الكلام قف ضدك هذا القلقات قاذا الرسول صلى الله عليه وسلم حديث كلام محون شيء نميمك أمينوس الجنة قلين والعياذ بالله إلها كما قال إذن نميمك وحوا تنك قيبتك وتحوا هذا الإنا قفك قادد أما كوح كقادد أو جيست قف أما كوح كلا أو جيست هذا الكاسمر كوحوا نميمه وإما بنانه وحوا نار تلو كلا قبر من والجو عذابه تلباد وحوا قف إنا سر أوليه أكشيكتد سر أوليه إنا كشيكتد نفتر كذا وحوا إنا إسكي إلى لسدواء رسول صلى الله عليه وسلم حديث قال وحوله ألا أنبئكم ما إذين شيئا ملغط ما إذين شيئا وحد باتل وين هي النميمة القاتلة بين الناس حديث ونميمة ضدك إسكو درتاع أوبسط كذا وحلو بها مرك إصلاح ذات البين واي نميمة دباتي اللي هي إصلاح ذات البين وانا أقول لي لبض قفوت إلا هشيسي وحوناك واي قف كان إن قفك كلا إلا هشيسي وأرين وناكسن واي مركز وكلا بين واشيك حتى في مركز بين توا بنان تاعي مركز بين توا بنان مثلا وحا إزدقال سنة هبل إكس إي واي إزدقال سنة وأركت لبدان قفوت إني إزدقال سنة قفا كشقي شيطانا كشقي نمي مدري بكي لا ذا واي غيبة دي نمي بدس كله ذا نمي مدري بكي لا ذا واي قفك مركز قفا وحكا دذا كشقي والي إزدقاله وحارتها مرك لبدان قفوت إني هشيسي سيدا ربطان لبدان قفوت هشيسين تهشيسينيسي كان أتمنى وحا كتري هبل ممقش وحوير مايا والله هبل آذوكو أمانة وحوير هدان أقالها هاي إكس وقفي عن واي وحو كيري إكس وقفي عن آذو في عينه أنا كقردرنا وأنا كحمه والله وحان جعلالها إنو يعفيو قفك قلبي سحمانتك وجرت وناقاسا وكانتي كي كلا أتجيسا مركا إكس مركا روتي مهدنا وايا آذيسا وحاتري ورنيوه ممقش إكس وحوير مايا واي وحوير ممقش مايا واي وحوير هدان أقالها dhibaatada naga soo gaarayso walaalkii dhibaatada uu sameeyay hadaan ogaa lahaa mar hor maana sameeyay aniga ka qaldan waxaan jeclaa lahaa inuu yacafiyo labadii qofood maxaa sameysay islaaxa dhaxdooda ka sameysay hadda koor ma garnaa qisana idin sheegay in kale waxaa jirta hooyo wanaagsan ah jirtay aad u wanaagsan wiilkeeda iyo xaaskiisa iskhilaafeen waa isdagaaleen wiilkii marka iyo xaaskiisa waxyaalaha la isku dagaaleen gabadha gardarnaa hooyada caleeshaankeedaan la isku dagaaleen xaaskiisa hooyadii nacbaneed waxay dhigi jirtaan hooyada ma rabin inaan arko wiilkan hooyadiisa wuu jeclaay wuxuu dhigi jiray hooyadii hadii oo imaato waa isdagaaleyna maalmaha kamid marka hooyadii iyo gabadhiya waxay soo hooyada wiilka hooyadiisa iyo walaashiisa waxay soo ziyaarteen gurigiisa oo xaaskiisa joogto soo ziyaarteen gabadhii marka iyo xaaskii waa is arkeen laba gabdho markeedan isku eejihiin waa istaabtaan laba gabadhii iyo xaaskii waa is arkeen marka waa la isqabsaday markii la isku dhacay hooyadii marka hooyadii way dhax gashay waxay tiri isdajiis gabadheedii marka qabatay gabadheedii canaad leena tan waa sodahay uu tahay gabadheedii wax kasta ay ku sameeyso way dul qaadanaysaa la gabadha sodahay waxay ka qabaaqay inay dul qaadan weyseen almuhim sidii wiilkii soo galay iyo sidii booqay wiilkii soo galay waxa jiro gabadhu way xanaagtay waxay tiri walaasha sameeyay hooyadii marka hooyadii gabadhu way yaabanta gabadha xaaskana gardarneed waxay tiri okay wax dhima lahoy ana ka qabana hooyadii gabadheedii ka xis waa baxeen gabadha xaaskii waxay ninkeeda ku tiri waaba ka xanaagsanaa walaasha ina canaanteed saa ina ku sameeyay ahayd maxaasan u sameeynaysa wiilku wuxuu yiri aniga gadaalan ba ka soo galay wasi wuxuu jireen ma ogeen maadaama saas waxaan jeclaa markii hore inaan hubsado haddana wax dhib ma lahan oo anaa la hadlay walaashii wax dhib ma la xaaskii sidoo ku sabay guriga hooyadiisu aaday hooyadii marka wareysay wuxuu dhacaan hooyadii u sheegtay wuxuu dhacaan waxay ku tiri arrinta 1 2 3 waay saasi u dhacaan طيب ويلكي محو سمي مركا وحو قاعدين مركا حاسكيسه اني قردرنتا واحد مال هذا المهم هويديس وحا ولاashis wuxuu ku yiraahdo ha xaaskiisu uu wuxuu yiraahdo ha adina wax dhimal asiga markuu wuxuu rajacleystay xaaskiisa iyo walaashiis inuu wanaag u shaqo saasana loo baahan nimanka saasa loo baahan hooyadii xaaskaada is qabtaan waxa loo baahan adin qofka safiirka wanaagsan inaa noqotida loo baahan faamilkaaga iyo xaaskaaga hadii is qabtaan adiga loo baahan kana hadal fiican oo gees kana hadal fiican oo gees adiga loo baahan طيب ninkii marka ilmi xaaskiisu raali galiyay gabadhii marka ilmihim xogo kadib badan marka ay imaadeen waa la iskhilaafay waa la isdagaalay tookadan waa hooyadu waxay go'aansatay marka inaysan keenin gabadheeda marka aysan keenin waxay ku tiri hooyo maxaa gabadha heblo u keeni weysmay wax dhimal waxay tiri aniga gabadhaada ahay ani hadda waxaan rabaa gabadha inaa keentid hooyadu waxay ku tiri khalaas waaye maalinta dambe hooyadii iidii gabadhii soo raaceen ay imaadeen كان حاس كان حوجو عقدة كجرت مية ما قانو المهم جبدي هذا إزدجال مركز إزدجال توكذا سحن إزدجالنتين نينكين واجوجا نينك وينديز ووجي ذا إني حاس كيس قردران تاعي
hooyadin way u jeedaa gabadheeda in laga gardaran yahay iyadoo saa samaysay maca daalik gabadheedii canaanatay gabadheedii kaxaysatay way baxday si gurigan ay u burburinin wiilkii marka wuu dhibsaday wuxuu ku yidhi walaali maqal xaaska aniga hadda from A to Z waa jooga adigaa gardarneed mana wanaagsan arrintaas iyadan waa maxay tahay walaasha inay canaanatadu ku qeyli sidii bay ahaydba المهم خلاص usoo socotay gabadhii waxay tiri waa ama aniga ma faamilka uu dajiyay weydiid marka wuxuu خلاص dayta saata bax gurigeena aad gabadhii way baxday gurigeedii aaday asigoo xanaaqsan guriga hooyadiis oo yimid hooyada waxay tiri wuxuu jiraan wuxuu yiri waa marka waxay tiri maya hooyo saama ahan waa wiilkeedii waanis waxay ku tiri inuu aabahaasaan inta ka badan aan dhaxmar jirta saana ahaan jirnay المهم wiilku waxay tiri soo celi xaaskii waa la soo celiyay gabadha waxay go'aansan waxay tiri walaasha inaa keentid horteeda ku canaanatid waa dikal si kale kuma soo noqonay hooyada u tagtay gabadhii marka gabadheedii lahays waxay tiri hooyo guriga walaalkaas u badbaado waxaan ka rabaa inaan wax yar horteedan kugu canaanana ee dulqaado waa gabar way ma jeclay qof la canaanto dulmi lagu canaantay gabadhii waxay tiri waayah meeshii tagtay المهم gabadhii markii la canaantay oo hooyadii ay canaanatay waxay rajaynaysaa inay soo noqoto markaas waxay tiri waa fiican tahay adi si fiican sameeyay laakiin wiilkaaga dhima asina walaashiisa hortiisa ku canaanto alin wiilku dul qaadan way bax guriga hooyada aado hooyadii marka gurigeedii ku soo noqotay wiilkii gurigu yimid inuu furuu rabay marka hooyada waxay tiri ha furina xoogo sug waqti si ha baxda gurigeeda ha aado ama guriga aga soo ta ama guriga familkeeda la geeyay waxay tiri ha furin sida loo joogo المهم hooyadii waxay sameysay marka maalinay wiilkeeda telefoonkiisa asigu markuu jiifay telefoonkiisa ka qaadatay markay ka qaaday telefoon numberkeedii ka soo baxsatay waxay u qortay marka risaale u qortay dhehayso kale hibla waa ku jeclay saana aad u amaanay maanta waxaan rabaa inaan qadadaada u xiisay oo cuntadaada u xiisay inaan ku imaadaan rabay gabadhii marka bila laga maqnaay iidan waa faraxday marka ma filinay ninkeeda inuu taxi message soo diray furitaanay sugaysay wiilkii warqaday qortay iyo ubaxay soo gaday waxay qofka diriska u sheegtay waxay tiri markii la gaaro 2 duhurnimo 12 subaxnimo la gaaro soo gargaraa warqadani ubaxaan keen hooyadii marka waxay sameysay wiilkeeda telefoonka markay tirtay kadib way tirtirtay risaalada way tirtirtay albaabka markii la soo gargaraaciyaa waxay tiri hooyo furba yaa waay iyadoo ogta qofka soo gargaraacay waa la furay markuu wiilkeeda furiyaa wuxuu yiri alaabtana lagu soo dhiibay yaa ku soo dhiibay alaabtana lagu soo dhiibay waa meesha qofku soo dhiibay meesha ku qoran tahay wiilku wax weyn iyo wuxuu arkay maxaa la dhahaa iyo warqad ay ku qoran tahay xabiibi waa ka xumahay waa raali noqo qalad kastan ka gale inay cafisadaan jeclahay maantana qada fiican aan ku sameeyay hooyadii marka waa ogtahay waa soo gashay isla markii wiilkii uu soo gashay ما شاء الله ويلك وجهي واسبدل وفرحسن تهاي مركز ير ما واحد ما ايش ما حاجره مركز تري قبدي او كي قبدي او ورقدان صادرت ما شاء الله قبر في عن واي تري انا وتكتدان ربا ادين هديه وقت لكن هل waxaan ka codsana maxaa waaye inaad ku soo qaadin mawduucan ku soo qaadin waxa ay soo dirtay iyo siisan u dareemin aysan u dhihin ana ku u dareem qof u dareensiin inay iyada ku raali gelisay u dareensiin waxba kala hadleen wiilku wuxuu yiraahday meeshuu tagay asna hadii uu qaaday gabadhina qaaday diyaarisay gabadha maxay u maleysay ninka inuu soo dalbaday oo raali geliyay oo wax soo dhiibay okay qadaf fiican ay kala jikday wiilkii muxuu maleeyay gabadhii xaaskiisa inay iyada ubax soo dirtay warqad soo dirtay waxaas dhan ayaa sameeyay hooyadiisa sameeynaysa arintan oo kale waa been iyo soo ma jeed laga shaqeynooyo waa laakiin waa banaantan oo kale namiima ma aha khayr laga shaqeynooyo طيب sidii marka kana uu ku soo qaaday wiilka guriga uu tagay xaaskiisa sugayso oo labisatay cunta fiican loo keenay waa la wada qadiyay waa la soo baxay guriga la aaday hooyadii marka hooyada loo yeer marka gabadh way raali gelisay hooyadii marka guriga tagtay guriga markay tagtay almuhim ninkii xaaskiisa waa taqaan waa la sheekaysanaa si loo sheekaysanaa waxyaalaha laga sheekaysanaa si hadal uu keenaa waxay ku tiri ubaxa ii soo dirtay ku mahadsan tahay ku tiri marka wuxuu maana wax ku soo diray misada wax ii soo dirtay markaas tii ma ana wax kuma soo diray ana kuma soo diray hayse wax u jiraan warqada aad risaalada aad ma soo qorin telefoonkiisa laga soo qoray oo yaabay asna wuxuu warqada aad ma soo dhiibay oo waxa aad ma keenay almi marka dambe wuxuu ogaadeen marka inay tahay hooyada ay ka shaqeeyay arintaas leen wiilku wuxuu ogaaday wuxuu yiri hadaan fahmay habeenan telefoonkiga waa yiri meel oo ka baxay ana waa iska seexday habeenkaasi marka ku soo dirtay oo dhaxay marka gabadhiina way ka shalaysay hoosadohdeeda meeshii u mareynaysay iyo seerabtay gurigeeda u badbaadiso waa isugu qaban weyso waxay dareentay marka inay galtay dambe ay gashay dareentay hoosadohdeeda sidii ku jeclaatay almuhim guriga markay hooyada guriga imaatay markay timid waxay tahay hooyo sam fiicanta hooyada waxay iska dhigtay marka wax aan wax ogeyn iska dhigtay ma sha Allah hooyo wiilka ubax uu soo dhiibay ma sha Allah waa ku jecel yahay tiri kana wuxuu yiri wax hooyo iyada warqadii wax ma sha Allah labadiina waa jecel Ilaahay idin barakeeyo
ayagana maadaama ay isqarisa marka hore kumaysan soo qaadin marka tanoo kale marka namiima lama dhaho imaam nawawi suu dhahay raximahullahu tacaala namiima macnaheeda waxaa waaye marka waa naqlu كلام الناس بعضهم لبعض dadka hadalkooda in la qaado qaarkooda laga qaado qaar kale loo geeyo ama qof laga qaado ama jamaaca laga qaado qof ama jamaaca kale loo geeyo sababta loo geenayo maxaa waaye بإفساد على طريق الإفساد إن لفسهادي على جهة الإفساد إن فساد dadka dhexdooda laga sameeyo ama la isku diro unbaa loo soo qaada dadana saas subxaan allah u samaysan waa arkaysaa qof dhan waxaa arkaysaa wanaagsan hadal uu soo qaada qof kale uu keenay maxaa ugu keenay sababta uu keenaysid maxaa waaye sababta qofka maxaa ka faa'iideysa qofka waxaan rabaa inaa isweydiisid qofka maadaama hadal xun aa ka soo qaadi hadal kale aa keentay gabdhahoo kale example aan rabaa inaa siiyo waxay arkaysaa nin xaas kala guursaday xaaskiisuu ka qarsaday example aan ku siinaa way soo wacaysaa xaaskiisii soo wacaysaa waxay leedahay oo ma ogid maahe hebla ninkaaga waxaan arkay gurigaas ka baxaaya jinniyaaka tii kale marka iyadoo xubsan dhiiggiya ku kacay maxay samaysay gabadha maxay samaysay marka fitnada ugu weyn gurigaas inuu burburay iyada sabab u noqonaysa meeqa gurigaas ku burburtay meeqa gurigaas ku burburtay kooda waxaa arkaysaa qofka soo daliil aga qaad sawir qofaan garanay sawir in laga qaaday asoo meel joogo xaaskiisa kale loo diray qofkaas faa'iidada uu ka helayo la yaabana waa yaab qofkan waxaan dhahay oo saan sameeyay faa'iidada uu ka helay maxaa waa maxay tahay faa'iidada uu ka helay ma taqaanid subxaan allah shaytaankii aa ku shaqaysanay shaytaanka wuxuu ku leeyahay laba qof oo wada sheekaysanayso nin xaas kaloo la sheekay gabar kaloo la sheekaysanayo ama guur ha ka rabo ama wax kale ha ka rabo qaraabo ma yihiin ma xaaskiisa kale loo dira fitna soo ma ahan waa fitna waaye ninka iyo xaaskiisa in la heshiisiiyo maahan yaa liisku dirin gurigan hadduu fasaada bilaahi caley gabadha hadda waxaa samaynayso arrintan oo ninka iyo xaaskiisa qaarna waxaa u badan dumarka u badan qaarna ragga u badan nin hadduu xaas guursado dadka sheega 90% gabar kale waay reasonkii u sheegaysana ma fahmin tan la guursadana waa gabar tuu guursadana waa gabar ma gabara gabar kaaga fiican waa garan la ahay gabadhan haddii la guursaday oo gabartan kale miskiinta iidan rabta inay guursato la asturo maxaa ugu diidaysa ugu xasdaysaa gabadhan in la asturo sababta ugu diidaysa maxay tahay waxaan rabaa xoogo inaad ka fikirto arrintaas dhibaatada aad samaynaysid waxaan rabaa inaad gadaal ugu fikirtid tan koobaad gabar miskiina gurigeeda burburinaysa tan labaad waxaa labadii guriba inay burburaana laga yaabaa ninka markii pressure la saaro tan inuu furo markuu furo kadib kuumaba kalsooni waa dhacday nin asaasoo kale waa asoo joogo xaaskii asoo gabar kale oo meel khudbasalays asoo la joogo sawir laga qaaday waa loo diray xaaskiisaa loo diray soo gurigii galaa naagtii tii koobaad xaas koobaad waa ogaatay muhim ninkii waxay ku qasabtay inuu furo gabadhii miskiinta ahayd oo loo tagay oo khudbasareeda ku jirtay miskiinta ahayd oo ku rabtay saas ku rabtay iyadoo qofka saa xor zawaajka xorriye waaye qof wax lagu maqasbaa qofka hadduu rabo hal maalin in bishii loo yimaado oo asiga ku qanacsan yahay xorriye kaamila waa gabadhana inay tiraahdo kale aniga may ninka xuquuqdeeda kaamila rabaa haddii tiraahana xorriye waa ilaahay labadaba wuu siiyey المهم تن ما حد على مركا مسكينتي أو حتى أنا واي هاي عرورا ليه وحان رباي مركا قاركود أنا إيتي مالي ماشي وكجري تيكو دو حتى إلا وإلا تن إنا فوت دواي ما بكجري أنا بحا هديك را علمي أولاده هنينكي وأول والوبري أبدا على ده وفري مركو فري وحال سوي إلى عددي كبحذ مياه مقرناي أفر بلود مركي كلام مقنايين مش شنبل كلام مقنايين وحيبة ما بكو كلسوني بو I don't trust you anymore ما بكلسوني بكو ما هايستي وإنا إفرتت سكستو أبدا سكستو والله فري تينا والله فري نينكا مركا فيري غوري كوباد وابربري غوري لباد وابربري يا سبب أها جبرها سبب أها آخر هالكي آذي سي جبرها مركز دنبي قال جلاي وحارب إن كويس دنبي قال جلاي لبقي بواي دنبنا أديك إله بسوا إذن كذا حياة واتوبة كيني كرتا إلهنا تواب رحيم واي دنبي قال بعدنا وحاوي ابن آدنا كجشي كاس والله بدن بواي إلهي هذا الكاس إنا كجش كودي دين قرضا كجشي قرضا كجشي وواحد تري إلهي أضو حاران تميا سمي حدود كان سمي ده تحمل ألير واقوي طلبت نوحا واي نينكين دنبيا كجشي دنبيا كجشي محاد عايمك آخر أنت آديسا آخر أنت آدي قرد أنا بربوريسي ومسلمة بربوريسي والله قبل waxaa jirtay oo markaan soo xasuusto aad aganaxo gurigeeda burburay marka dambe oysay gabdhay lahayd gabdhaheedo teenager noqday oo gabdhaha wiilashu isku mid maaha gabdhaha markay soo qaangaaraan hooy u baahan yihiin lan waxyaalo waxa ku dhacay aysan garaneynina ku dhacay
gabadhan way iska deganeedo gabar fiicanay ahayd xaasay ahayd ninkeeda dhibku ma haynin almuhim maalin maalmaha ka mid ah qolku wax ku xiran jira qol waxaa jirta u xirnaa oo aan la geli jirin gabadhan way hagaajin jirta way soo bixi jirta wuxuu dhihi jira qolka hagaajina markii dambe gabadha waa yaabtay ninka qolka maxaa ugu qarsan way fahmi weysay saaxib suu gabar saaxib xun ma weynaysid qaar ka mid u tahay marka hore la tashato hooyadeed walaaleed waxay dhaheen maxaa kaa gala qolku muu xirno haa dhib muu ku haya adiga habeen maa lagaa maqan yahay maya biil la-aan maa ku haysa maya ku habeen walba sooma joogo hadduusan safar ku jirin maahan habeen kasta uu jooga sanadkiina hal mar uu safraya oo maalmo business maqnaa marmarka qaarkood wuuna kaxeeyo ayib habeen lagaama maqno culaysku mahay dabeecadiis ma isbedeshay maya qolkiisa u xirnaada maxaa kaaga galay hooyadii wuxuu ku tiri faraha aga qaad hayay tiri marka المهم واسك جبر واتقانا أصحاب إلى أصحاب جبر حاس جبدها أصحاب تمت كم ده وشاكته وحيت اللي بكاسة هايستو وحيت قولك بار قولك هي بار تويد دبق جدسي ما وحي سكت سوسو وسو أصو سفر عادي سكت مركو سفر عادي لأن مال بيكو قادين قولك واد دبق جدسي عن بكرة أبي حتى كاربت كي كرو قادي ميل كستي بارتي وحوا ويسي جبدي أو hal maalin ka badan shaqadeeda dhan u badash guriga inay qolkii daba gediso waxba waa ka waayay sidii loo joogay gabadhii tir war qolkii wax waa ka waayay gabadhu waxay ku tiri marka shaytaan inay tahay iska dayso waxay tiri okay waxa u maleynaa baabuurkiisa inuu wax ugu jiro baabuur markuu guriga yimaado leen qolku uu ku hadli jiray waxay tiri marka baabuurka waxa ugu gaariga waxa ugu rakibtaa samaacad ugu rakib oo hadda laga anaaba ku soo gadaayo la hawla wala quwwata illa billah fasahaad إني كنت هذا أنا إيدي سي سمين اسكو عاونوسا سماعي وسoo gaday oo la dhakan oo dadka lagu dhageys baabuurka lagu rakibay ninka iskama ogo baabuurkiis markuu rax shaqada uu aadayo tan guriga waxa uu yaala samaaca uu yaalo wax kasto ku hadlo dhagta ugu jirto maqlu from A to Z maxaa dhahay marka gabadhii waxay maqash marka ninka markuu baxo gabadha kale uu la hadlo yahay كبر كلا أما قارة حتى عرب هين قارة لبنان جو وقارة المهم قارة ودن كبر جوجين بو كبدي وحي مركو حوا عضادين كذا إنه حاس كلا ليه لكن إيش ودن كوسن جوجين طيب أرنتي مركها كبدي وحي مركي أرنتي وقعتي وحي سو استاكتي نيو إفر ننكي شاقي يكون نقطي وليجيس قريجيس محانعي وحبو ينا إفرتي دار ربع وركجوج أبدا gabadhi si kasta loola hadlay caruurteeda qaar ka mid gabdhay ahaayeen laba wiil 4 gabadhay lahayd la hadleen hooyaa naga tagaysaa caruurteeda abadan waxay soo istaad go'aan waxayba gaartayba maba ku rabibo war ii sheeg waxaan ka sameeyay ii sheeg waa ka raali gelina waxa dhibsatay ii sheeg ma jirto inay furtun baa rabaa ninkii wuxuu tagay hooy aabaheedu u tagay aabihii la hadlay waxba maba rabin ninkan waxay la hadlay hooyadii maba rabin ninkan walaashada ma rabi qofna wax uma sheegayso ninkii wuu yaa wuxuu yiri waa walaal wax ii sheeg aan kugu fure iska furma wax ii sheeg reason ii sheeg aan kugu fure abadan xitr waa inay furtid reason ma ku sheegay inay furtid waa ninkii wuxuu yiri waa aniga reason ii sheeg daartiin aan ku furtay gabadhii markuu ninka fur waayay lawyer u tagtay lawyerkii wuxuu ku tiri waxaan rabaa in liifo ninkan iga furtid maxkamad aadid ninkii wuxuu yiri waayahay ma xumo fasakha dalbanaysa soo maaha reason ii sheeg وحيت الوحبة reason ما جرته إيه تقول هاي you have to tell me reason أنا lawyer هاي judge كمركا استاج قاضي كمركا هو استاج I have to tell him something محاجر إني قبلها محيكو دل بنيس وحبة والو قول يابا فريتان reason كمحاور reason ما جر وري أرضي تو كلية هاي reason you have to say something وفريتان okay reason محاور ما جرته قف كهفور هاي مالهن وحيت رواية مقال وأربعين أكو شيء لكن أرنتان وكلوس هويدي أبيه ومشيغن نينكن ومشيغن ما كستي ومشيغن marka waxa waaye ina waxaan rabaa oo madaxay ninka iga qaadid saas miya haye wixii uu sheegtay marka waxay tirsi wixii uu sheegtay waxay tir arinta qisada hadaan ku sheegay aga sheekaysay ninki qaadigu u tagay arintii uu sheegay waxay tiri meherkayga dhan waa ka tanaasulay qaadiga marka wuxuu yiri adiga ka iimaanaysa arintan ka iimaanaysa maadaama ay ka iimaanayso marka wuxuu ninkan sabab oo dhibaato uu ku sii hadii sabab ka iimaan ninka duu meherkiisa dalbado waa ka tanaasulay meherka waa ka tanaasuleysa lacagta meherka ku lahayd 10,000 oo gadaalkeed waa ka tan inta hor u qaata qaada laakiin inta kale waa ka tanaasuleysa
هذا خلع ربتين وحي سنة وعلنيس مع الذهب كيس وعلنيس لكن فسخ هذا ربتين وأديك هذا البني ذهب وقت تنازل وحي ترى ودي بيقوم هايسو جبنا وحا مسكح هذا كل حرنت إن لفرو وأنا رماتي جبني مركا سيديا مركا قاضي نينكي لوير وحالي مركا سيديا مركا على وفر نينكو حوير مهر كذا وصينا وير ما مهر كذا أنا قاضته وحوير خلاص فرتان ما دام ربطوا الله بحيرته فرتان سو قاضي أو ير فرتان ربطه صاب ما يكون شيء كتير ما وارنت حوير قاضي ويدلبت الجبلان ومهر كان وكتنازل يسه وحريزة مكوش ما خلاص وحوير ما دام إذا محكمة دي ما تقول له وافرا مهر كذا وصينا هوير سيديو نينكو كفري مهر كذا نوسي gabadhii kiistii lacagtii haysatay oo aabaheedii hooyadii gurigeedii ku soo noqotay aabihii waa dhintay guriga muxuu noqday marka dhaxal uu noqday gurigeena markuu hore deganay qof qolkeedii haystay guriga ku soo kortay waa qolkeeda weyn waa taqaani wax la hadlay malahan aabihii waa dhintay guriga muxuu noqday dhaxal marka waa la gadgaday qof walba lacag maxay noqotay inay degto guri ijaar villay deganeed ninkan ilaahay xoolo dhaqaalasi waa villay deganeed villadii waa ka soo tagtay guriga aabaheeda ku soo noqday asnafteeda guri weyn iska guriga aabihii waa dhintay waa la gaday waa la kala qaybiyay xoolihii waa la kala qaybsaday qof walba xiisu qaadana lacag guri ijaari marka dambe bilowday caruurteedii gabdhaheedii meelay kala xiriirta ma taqaano waa gabdhihii markay weynaadeen hooyadii u baahan yihiin gurigii ma aadi karto walaana ninka muxram ma ah khalaas waa dhamaatay gabadhii marka 5 sano kadib markii la gaaray ay gabdhihii wada qaangaar noqdeen jaamacadda aadeen ay looyarkii soo wacday waxay ku tiri maalintii hadalkaaga haddaan qaadan lahaa hadalka ninkaygana aan maqli lahaa hooyadii aabahee ninkeeda hadalkeeda aan maqli lahaa dhibaatada maanta ku jiro kuma juri lahayn looyarku wuxuu ku yiri marka dhibaatada maanta ku jirtid maxaa ah waxay tiri villan deganaay gurigan prince ka ahay boqorad ka ahay ay tiri queen aan ka ahay shaqaala ii joogay ninkii waxba iga mahaleeyeen gabar xunayta meeshii ku lahayd marka waxay tiri mid xun oo aakharo la xisaabtami doono gurigeega burburisay ilaahay gurigeeda ha burburiye gurigeega burburisay taasna waxay tiri yawm alqiyaama ilaahay la hor istaaga gurigeega ay burburisay ilmahayga waxay tiri gabdhahayga حتى ما يقان مركي قانجان قبله واتقانا مركي قانجان ما يقانان حتى سي او طاهرية ما يقانان أنيجي وحيت رواك مقانه مركي إصاوة عن أوينا أنا وأويا قبله وأوحيس وحنا سمي ما أقاني تاس وحيت المدح هذا الله كشوه فيلا أنا ودقنا بقرة هاي لي شقين جري أنا قولي أبيه كسون نقد أو أنا دقنا قولي وينها قولي أبيه مركون رحل ونقدين وحين نقطة مركي قولي إلا كذا مركي إلا كذينه قولي إيجار عن دقنا هي تريمانته guri ijaarantay furan boqorad loo shaqeynaayo ilaa guri ijaar qof cuntidiisa soo gataa ahay tiri taas marka waxay tahay madaxeeda Allah ka shubo aakharane waa hor istaagi doon ani iyada waa hor istaagina namiimada marka dhibaatada ay keentay fiiri isku dirka dhibaatada uu keenay fiiri gurigu burburiya gabadha miskiinta gurigeeda yaa burburiya isku diraa burburiya mid xuno ilaahi aan ka baqaynin dhibaata ay keentay lagu burburiya مثالك أو تاسو كلا لغو سمينا وبدن تح بل وحالة هدو جورجا يبربرون حتى إن نباتك وجارت على جيابه هذا مثلا جبر نينا يا سيدو كلا أصلا حاس ومجالة دجنا مجالة كلا وحوكو جورسي طول وآذي الأسبوع لا معلومات وآذي جور حاس كجورسي وأو قرصين شنتي اسم معلومات ماشي أنا جوجي لبعض معلومات شقينا طول آذي جري طول ذا سوسك جوجي جري طول ذي وجوجي مركا عرورة أو ضلته عرور تواوين هذين سكولي جارين جبر دي ستي هرو سكولي جارتي إذا حاسك كوبad caruurtii dhashay macallimiin ay noqdeen markii macallin noqday ilaahay wuxuu qadaray in loo wareejiyo tuuladu aabaheeda ka shaqeeyay labada maalmood ka shaqeeyay in loo wareejiyo noqotay qadar fiiri ay noqotay maxaa dhacay marka gabadhii marka macallin ardayda magacooda ay naadinaysa attendance ay sameynaysa xuduura la sameynaa hebel oo hebel carabta soo magacooda qabiilka ay raaciyaan fulaan الهبل la leeyahay اوكي محمد صالح ابن عثيمين ما قفل بحال الراعي قبيل كيس على الراعي جري قالوا راعينا طيب ابن حجر العسقلاني السيوطي قفوا اما مقاله ديس اما حالو راعينا ماشي ودقيه اما قبيل كيس على راعينا عربت ساسوا الى يومنا هذا ساسوا كبد وحي يابت كبدهان سي اسكو ماغعي كوبات اي لبات اي سدحاد اي افراد اي قبيل اسكو مد سي كونودين وي شكسي حتى كالي اباها ماغعيس هبل على لها اوكي هو اذا مقعدنا كل شيء تيسن كرنين حفيز كي آتي
oo idaaradii aad waxay tiri waxaan u baahnay heblo folderkeeda u baahnay malafkeeda u baahnay halii keeno heblo folderkeeda loo keenay waxay bilowday markii inay baarto bam warqadii gelisay bam waxaa ka soo baxay marka teesaraha aabaheeda ama ID-ga aabaheeda ka soo baxay what aabaheeda sawirkiisa ID-gii ka soo baxay oo sawirkiisa meesha ku jiro oo dhahay waa gabadheeda maxaa dhacay markii gabadhii waxay samaysay warqadihii kaabi ka qaadisay u wada hooyadeedii geysay fiiri gabadhaan gabar wanaagsan ma aha soo maahan hooyadeed iyo aabaheeda inay isku dirtay maxay ka faa'iidaysaa way qaaday sawirkii qaaday gabadha saas oo kala sameeya markii aabay hooyis qabsan hooyay la jiray ama aabay la jiray qalad waay labadaba waa ku siman yihiin ha isku dirin qofna ha la jirin dhaxdhaxaad noqo biri waa heshiinaya adiga marka meesha caasi ku noqonaysid gabadhi sawirkii qaadi waxay u geysay hooyadeed u geysay way tiri hooyo meeshan iska fadhisay aabane caruur waxa ku dhaldhale ninkii miskiinka miskuuga soo noqday habeenada kamid oo soo noqday wuxuu arkay leeyahay WhatsApp ma jirin telefoonad ma jirin wuxuu arkay leeyahay afka loo tuuray loo arkay ايش فيكم maxaydin ku dhacay maxaydin haayo say wax u jiraan waa la xanaaqsan yahay hooyadii waa xanaaqsantay gabdhii meesha inay joogaan ha way khiyaantay oo maxaan kugu sameeyay naag kala guursatay oo naagteen guursaday naagta hebel oo sawirka warqadii loo soo bixiyay marka gabadhaas soo maahan oo wuxuu yiri sax waa gabadheeda marka hore waa ka qarinayo dhahay oo ka qarinay shanta maalmood aan kula joolamo idan jool laakiin maadaama maanta aad ogaatay oo dhahay caawa ogaatay wax dhib ma lahan tuulada waa ii dhowdahay oo dhahay habeena adiga waaye habeena iyada waaye hadda rabina xora tahay maadaama adiga aad raadsatay aad ogaatay shan maalmood aan kula joogi nadiif ku nooleed dhibaato kuma haynin ma walwal kumaadan jirin laakiin adiga lagu haa ku raadsatay ama qofka ku soo keenaybo qofkii qof inuu waxa ogaanaysa marka caawa wixii ka dambeeyo caawa kula jooga habeen dambana xagga aada habeen kala meeshan ama dii kalo habeenba laba habeenba meel aan joogo ku talagalo hadda wixii ka dambeeyay taas waxaad maamadii qaylo ma sameyn karto wuxuu yiri maqal ani xora ma waa ka qarsay adiga ogaad hadda wixii ka dambeeyay hadaadan ku rabin sheeg maamadii gabadheedii inkaar u gashay inkaari kugu dhacday tirafiiri ninkii aabahan waa igu dirtay dibna waa ii keentay fiiri waa kaas namiimada fiiri marka xataa hadaysan ku keenin guriga uusan burburin dhibaatay ku keenaysaa marka qofka markuu wax ku keeno qof hadal ku keenay waxa ku tiraa ilaahay ka baq ku dheh qof haduu hadal ku keeno hadalkiisa qaadan waxa ku tiraa ilaahay ka baq iga aamus sheekana ii sheegan ku dheh laakiin maalinta hadalkiisa qaadatay ama aadaba gashid ama إسراع سيسد واتكشلين يساكو تلقى خير الله يتنسيو جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إله درتي سيدين جعلها ما كان اسكي إله لأنه حنتا شلان كسوا شيكين إيو غيبة ذا نميمة ذا اسكي إله لأنه تدكل اسكو دراي مفيعنا تدكل اسكو دراي مفيعنا خير الله كسيو اسكي إله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إله درتي سيدين جعلها سؤالوين هدي جران قارن كوذا جوابا